bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan wanaagsan dhammaanba dhegeystayaasha qiimiga iyo qaayaha mudan ee hawada naga dhegeysanayow halkani waa codka soomaalida Finland SSM oo goorahan oo kale aad uga barateen inaanu idinka soo gudbinno wararkii ku saabsanaa viruska corona ee Finland iyo caalamka intiisa kale alaaba waxaanu idiin soo gudbinaa maalmaha Isniinta, Arbacada iyo Jimcaha. haddii aanu ka horeyno dalkan Finland maanta oo Jimco ah bisha Maarso 26 ay tahay sanadka 2021 ayaa sida ay sheegtay hay'adda caafimaadka iyo nolol wanaagga dalkan Finland ee magaceeda loo yaqaano THL waxaa viruska corona laga helay maanta 512 qof oo hor leh dalkan Finland, waxaana ay sheegtay in ay jiraan laba xaaladood oo dhimasho horle ah. maalintii shalay ahayd ee Khamiistana waxaa laga helay viruska corona 726 iyadoo dhimashaduna ay ahayd 4 qof. tirada guud ee dadka laga helay viruska corona tan iyo intii cudurka safmarka uu ka bilowday Finland ayaa waxay ka dhigaysaa taasi 47,754. labadii toddobaad ee ugu dambeysay oo keliya tiro gaaraysa 9,439 qof ayaa ku korortay tirada dadka laga helay viruska corona labadii toddobaad ee kasii horeysay. isku darka guud qiyaastii ilaa iyo 65 magaalo oo dalkan Finland ka tirsan ayaa viruska laga helay, waxaana ugu badan meelaha laga helay gobolka Helsinki iyo Uusimaa oo 327 qof laga helay, gobolka Varsina-Suomi oo 48 qof laga helay, gobolka Etelä-Karjala oo 20 qof laga helay iyo Pirkanmaa oo 15 qof laga helay. magaalooyinka tirada ugu badan ee viruska laga helana waxa ay kala yihiin sida tan soo socota: Helsinki 162, Espoo 58, Turku 50, Vantaa 50, Lappeenranta 18, Kerava 14, Tampere 13, Kuopio 10. waxaa min 9 qof laga helay magaalooyinka kale ah Uusikaupunki iyo Tuusula. Kouvola 7 qof, Vihti 6 qof, Nurmijärvi 5 qof. waxaa min 4 qof laga helay magaalooyinka kale ah Kirkkonummi, Pielavesi, Karkkila, Salo, Laitila, Joensuu, Kotka iyo Mikkeli. waxaa min 3 qof laga helay magaalooyinka kale ah Sibbo, Savonlinna, Porvoo, Lieto, Kaarina iyo Huvinka. min 2 qof waxaa laga helay magaalooyinka kale ah Alevos, Järvenpää, Suintio, Parainen, Masku, Naantali, Paimio, Vaasa, Lahti, Imatra, Hämeenlinna, Hamina iyo magaalada Oulu. inta kale ee magaalooyinka soo harayna waxaa laga helay min 1 qof. xanuunka viruska awgiis ayaa isbitaalka haatan waxaa ugu jira tiro aad u badan, taas oo gaaraysa 313 qof, waxaana tiradii shalay kusoo korortay 26 qof oo hor leh oo shalay gelinkii dambe xanuunka dartii isbitaalka loo dhigay. qaybta gargaarka degdega ah waxaa ku jira 59 qof. hay-adda THLna waxa ay shaaca ka qaaday haatan tirada dhimashadu inay marayso 817 qof marka lagu daro labadii qof ee maanta dhimashadooda lasoo sheegay. waxaa 7 maalmood ee lasoo dhaafay tirada dhimashadu ay wadarta guud ahayd 12 qof. dhinaca kale, nooca cusub ee viruska corona oo toddobaadkiiba mar qiimeyn lagu sameeyo maxaa yeelay baaritaanka uu qaato oo dheer awgeed ayaa haatan tirokoobkii ugu dambeeyey waxa uu sheegayaa inuu si xawli ah ku socdo, waxaana tirada guud ee viruska cusub ee laga helay Finland ilaa iyo iminka ay tiradu maraysaa 2,584. 2,403 ka mid a tiradaasi waa nooca Ingiriiska, 180na waa nooca Koonfur Afrika, iyadoo hal noocana uu yahay midka laga helay Brazil. hay-adda THL waxa ay sheegtay in tallaalka haatan ay qaateen dad lagu qiyaasay 809,974 qof oo ugu yaraan qaybtii hore ee tallaalka qaatay. dhinaca kalena, maalmahanba waxaa warbaahinta aad u haystay qodobka ku saabsan in dowladdu haatan ay qorsheynayso in ay soo rogto xadayn dhinaca dhaqdhaqaaqa ama waxa loo yaqaano bandow. ra-iisul wasaaraha dalka Finland Sanna Marin oo u waramaysay warfidyeenada ayaa toddobaadkii hore sheegtay in arrinkaasi lagama maarmaan uu yahay oo ah in lasoo rogo xadaymo hor leh oo ka adag kuwii hore, oo dabcan loola jeedo xadaynta dhinaca dhaqdhaqaaqa ama bandowga. xaaladdu waa mid aad u khatara, waxaana halis loogu jiraa bay tiri in cadaadis xoog leh uu dul fuulo isbitaalada oo ay bukaanka la ildaran xanuunka viruska corona ka bataan haddii aanan qaadin xadaymo cusub oo looga hortagayo faafista cudurka corona, ayay tiri Sanna Marin. sida ra-iisul wasaaruhu ay sheegtay, aragtidan ama hindisahan cusub ee dowladda waa mid lagu saleeyay qiimeyntii ay hay-adda caafimaadka iyo nolol wanaagga THL ku samaysay xaaladda cudurka safmarka ee viruska corona iyo sida looga hortagi karo.
sidoo kale wasaaradda caafimaadka ee arrimaha bulshada STM, isbitaalada jaamacadda ee magaalooyinka Helsinki, Hus iyo kan Turku ee Tux waxa ay qabaan in aragtida ah in xadiimahaasi loo baahan yahay. ra-iisul wasaaraha dalka Finland Sanna Marin ayaa sheegtay in xadiimaha dhaqdhaqaaqa ama bandowgu ay yihiin qaabka kaliya ee wax looga qaban karo isu imaatinka ka dhacaya guryaha gaarka dhexdooda, waayo ayay tiri isu imaatinka gaarka way adag tahay in si kale wax looga qabto. waxaa kaloo ra-iisul wasaaruhu ay sheegtay in xadiimaha laga samayn doono dhaqdhaqaaqa dadka ay yihiin kuwa si fiican wax uga taraya noocyada cusub ee viruska corona. xisbiyada talada dalka ku bahoobay ayaa haatan isku aragti ka noqday in lasoo rogo xadiimaha la xiriira dhaqdhaqaaqa dadka ama bandowga, inkastoo ay muddo dhowr maalmooda ku qaadatay inay arrinkan isku aragti ka noqdaan. waxaa tallaabada ku xigta ay noqon doontaa in loo bandhigo xildhibaanada ka tirsan xisbiyada ku bahoobay talada dalka, kadibna waxaa loo gudbin doonaa fadhiga guud ee xildhibaanada baarlamaanka. qorshaha waxa uu ahaa in toddobaadkan lasoo afjaro, hase yeeshee wararkii ugu dambeeyay soo baxa ayaa waxay tilmaamayaan inaanay suuragal ahayn in toddobaadkan iyo kan ku xigaba loo gudbiyo baarlamaanka, oo arrinkaasi uu dibdhici doono fasaxa Easterka ama baasiyaaninka kadib, sababtoo ah iyadoo baarlamaanku aan wax fadhiya lahayn. xisbiyada mucaaradka ayaa iyagu kasoo horjeestay arrinkan, waxaana ay sheegeen in aan weli loo baahnayn qaadista tallaabooyin kale oo dheeraada oo looga hortagayo faafista viruska, inkastoo arrinkaasi uu u badan yahay arrin xariiftana oo dhinaca siyaasadda ah, maadaama ay doonayaan in doorashooyinka soo socda ay ku guuleystaan, oo ay tahay arrin ay ku qancinayaan dadweynaha oo iyagu khaati ka taagan xadiimahan iyo arrimaha ku saabsan ka hortagga viruska corona tallaabooyinka laga qaaday. weli lama oga xilliga ay xadiimahani dhaqan geli doonaan sida rasmiga ah, laakiinse hindisaha dowladdu ay soo saartay ee ku saabsan xadiimahan waxaa laga reebay 12 xaaladood oo qofku uu guriga bannaankiisa uga bixi karo xilliga uu socdo bandowga ama xadidaadda dhaqdhaqaaqa. waxaana arrinkan hadduu hirgalo laysku raaco waardiyeyn doona ama ilaalin doona booliska, iyadoo ciddii la qabtana la weydiin doono wax caddaynaya sababta ay u socoto iyo halka ay ku jeedo. arrimaha laga soo reebay waxaa ka mid ah aadista lagama maarmaanka ee qofku uu ku tagayo dukaanka cuntada ama farmashiyaha oo weliba u ah kuwa u dhow, gaariga uu bensiin kusoo shubanayo, iyo in qofku uu u baxo soo qaadashada arrimo kale oo dhanka nolosha lagama maarmaan u ah. 2. dana kasoo dhammaysiga bangiyada iyo boostada, sida in qofku uu waraaq ama alaab kala dirayo ama alaab boostada u timid uu kasoo qaadanayo. 3. dana soo dhammaysiga lagama maarmaanka ee arrimaha la xiriira daryeelka caafimaadka iyo arrimaha bulshada ee xafiisyada dowladda. 4. u bixis la xiriirta shaqo ama howlaha ganacsiga ee qofka muruqmaalka ah ee howlihiisu asaga ay u gaarka yihiin. aadista xanaanada, iskuulka hoose dhexe, dugsiyada sare iyo macaahidda waxbarashada sare, iyo aadista imtixaanka iskuulka lagu galayo. 6. qabashada xilalka kalsooniyadeed ee la xiriira howlaha heer degaan ahaaneed, waana dadka loo yaqaano luwato musmiyaheed ee arrimaha shirkadaha qaabilsan, iyo sidoo kale ka qayb qaadashada shirarka ururada gaarka ah ee lagama maarmaanka ah. 8. adeegyada gurmadka ama shaqada qaranka. 9. la kulanka qofka ehelka ah ee ku jira guryaha dadka waaweyn lagu xanaaneeyo amaba khatarta ugu jira inuu dhinto, ka qayb qaadashada aaska qofka ehelka ah, hirgelinta xuquuqda la kulanka ilmaha iyo caawinta qofka naafada ah. 10. la kulanka gaarka ah ee wakiil ka socda ururka diiniga ah ama imaamka masjidka, kulankaasoo ku saabsan inuu yahay mid qofka lagu wacdinayo ama xagga qalbigiisa lagu dhisayo. wareejinta guriga ama gaariga qofku uu iska leeyahay. 11. daryeelidda xayawaanka dabjoogta ama rabaayada ah ee guriga lagu haysto, sida qofka eyga leh oo bannaanka inuu u saara loo ogol yahay. ugu dambeynna qodobka 12aad ee la isu ogol yahay oo ah u safridda qofku u baxayo cariiskiisa xagaaga ama waxaa loo yaqaano mokiga. sida ku cad hindisaha dowladda waxaa iyadana la ogol yahay in caruurtu ay bannaanka guriga ku cayaari karaan, iyada oo uu ilaalinayo hal qof oo waalida ama walaalaha qaangaarka ah. sidoo kale inta lagu guda jiro xadeynta dhaqdhaqaaqa hadday hirgasho, waxaa caruurta dhalatay sanadkii 2008 iyo wixii ka yar loo ogol yahay in ay bannaanka iyagu iskula cayaari karaan. magaalooyinka uu bandowga ama xadidaadda dhaqdhaqaaq uu ka jiro waxaa sidoo kale khasaba in la qaato afshareerka marka lagu jiro gudaha goobaha dadka kale ay joogaan iyo marka la raacayo gaadiidka dadweynaha, waxaana afshareerku uu khasab ku yahay laga bilaabo da-da 14 sano iyo wixii kasii weyn, iyadoo haddii sharciga isagana laga wada u hirgalo
qofkii jabiya la ganaaxi doono lacag dhan 40 euro. arrimahaasi oo dhan aan soo sheegnay ma aha kuwo weli dhaqan galay, maxaa yeelay baarlamanka ayaan ka gaari karin toddobaadkan iyo kan xigatoonna, waxaana ay wararku maanta tilmaamayeen in xadiimahaasi ugu horeyn ay hirgeli doonaan fasaxa Easterka ama baasyaananka kadib. wararka ka imanaya magaalada Turkuna waxa ay shaaca ka qaadayaan in faafistii viruska corona ee ka bilaabatay macadka sare ee waxbarashada caalamiga ee magaalada Turku haatan xaaladiisu ay meel adag marayso, iyadoo dadka xanuunka laga helayana ay iska soo daba dhacayaan oo tiradu ay badanayso. waxaana isniintii kadib la helay 20 qof oo hor leh, iyadoo tiradu haatan 120 ay kor u dhaaftay. sidaasina waxaa sheegay maamulka magaalada Turku. waxaa jira walwal cusub oo isagana tilmaamaya in viruska la helay uu yahay nooca koonfur Afrika ee aadka u faafa, walow maamulka magaaladu arrinkaasi aanay weli xoojin. magaalada Kemeyaarve iyadana wararka ka imanaya ayaa waxa ay shaaca ka qaadayaan in laga helay nooc cusub oo viruska corona ah, kaasi oo ah mid aan weli la aqoonsan. dadkii laga helay viruska corona saamigoodii ee positive-ka ah islamarkaana lagu baaray magaalada Helsinki ayaa waxa ay muujinayaan in noocan uu yahay mid cusub, sida uu sheegay madaxa u qaabilsan arrimaha caabuqa isbitaalka waaxda caafimaadka ee Labi, Marco Bros. waxaana uu sheegay in noocani uu yahay nooc cusub islamarkaana aan weli la ogeyn halka uu ku salaysan yahay. saddexda nooc ee hore ee shaybaarka ku yaala Helsinki oo aqoonsado ee kala ah nooca Ingiriiska, kan Brazil iyo kan Koonfur Afrika midkoodna ma aha. arrintaasi oo markaa iyaduna walwalkeeda leh, ayuu dhakhtarku yiri. dhinaca arrimaha tallaalka oo hakad la geliyay iyadana wararkii ugu dambeeyay waxa ay shaaca ka qaadayaan, sida ay sheegtay dhakhtarada sare ee ka tirsan hay'adda THL Hannah Nohnek, in weli aan dadkii lagu duray tallaalka AstraZeneca ee da'doodu ay ka yartahay 65 sano ee halka tallaal qaatay weli aan la siin karin tallaalkii labaad. waxaana dhakhtaradu ay sheegtay in nasiib wanaag muddadii 12 toddobaad ee u dhaxaysay tallaalka ay dadkaasi weli ku guda jiraan, hase yeeshee bay tiri weli dowladda Finland aanay fasaxin in tallaalkaasi dib loo bilaabo oo la siiyo dadkii hore u qaatay halka tallaal, sababtoo ana ay tahay taxadar laga taxadarayo baaritaanka haatan dhiman ee laga shakisan yahay in tallaalkaasi uu keenay xinjiro iyo in kale. dowladda Finland ayaa hore u joojisay dadka ka yar 65 sano inaan lagu mudi karin tallaalka AstraZeneca kadib markii ay soo baxday shakiga ah inuu sababayo xinjiroga, walow aan wax cad loo haynin. welina baaritaankii ayaa socda. isla tallaalkeenu ku jirnaya dowladda dalka Norway ayaa iyaduna shaaca waxay ka qaaday in joojinta AstraZeneca ay sii wadi doonto ilaa iyo bartamaha bisha Abriil, iyadoo sheegtay in 15 Abriil wixii ka dambeeyay ay go'aan ka gaari doonto. waxaana ay dowladdu tilmaantay in weli aanu dhammaan baaritaankii tallaalkaasi lagu hayay. dhinaca gaadiidkana hay-adda tareemada dalka Finland ee VR ayaa waxa ay shaaca ka qaaday in laga bilaabo maalinta berrita ah oo 27 bisha saddexaad ilaa iyo 25 bisha afaraad ee sanadkan ay xadayn doonaan tirada dadka musaafiriinta ah ee raacaya tareemada. tareemadaasina waa kuwa ka shaqeeya magaalada gudaheeda iyo kuwa dibaddaba, waxaana xadkaasi lagu ekeyn doonaa kala bar inta uu tareenku qaado. arrinkani ayaa VR waxa ay sheegtay inaanu khuseynin dadka iyagu macaamiisha ah ee horey tigidhka u goostay, loogamana baahna dadkaasi in ay tigidhka bedelaan ama ay kansalaan, sidoodii ayay tareenka ugu raaci doonaan. waa tareenada dabcan gobolada. tareenada ka shaqeeya magaalada gudaheedana ma jirto sida VR ay sheegtay qof tareenka laga tuuri doono ama loo diidi doono, laakiinse dadka waa la kala hagi doonaa iyadoo tareemada ama xaafadaha tareenku uu muddada yar u dhaxeeya loo sheegi doono dadka inay kan kale soo raacaan ama sugaan. si kastaba arrinkani ayaa ah arrin culayskiisa leh, iyadoo gaar ahaan xilliyada shaqada iyo xilliyada buuqa ama zaxmadu ay jirto ay dadku tareenka ku badan yihiin. hase yeeshee VR waxa ay sheegtay in istaagga laftigiisa la xisaabin doono oo fadhiga keliya aanu ahayn waxa la xisaabinayo cadadka. dhinaca kalena iyadoo walwal uu ka jiray dadka karantiilka ku jira ama goodoomista ee iyagoo aan u hoggaansamaynin nidaamka la amray, ayaa maalmahan waxaa sidoo kale wararku ay tilmaamayaan inay soo baxayeen dad iyagu isku dayaya in ay been abuur ku sameeyaan ama forgery ay ka dhigaan shahaadada ku saabsan tallaalka viruska corona saamiga qofka laga soo qaaday,
iyagoo markaasi si ay u helaan mid negative ah haddii positive ay noqdaan ay bedelayaan. arrinkaasina waxaa kiiskii ugu horreeya haatan lagu qaadayaa nin shaqaale ah oo ka shaqeeya magaalada Kitile xarun ku taalla Levi la yiraahdo. ninkaasi oo lagu qabtay kadib markii saamigii laga soo qaaday viruska corona ee positive-ka ahaa oo in laga helay cudurka uu bedelay isla markaana uu negative ka dhigay. waxaana ninkaasi uu adeegsaday ranjiga cidiyaha gabdhuhu ay marsadaan ee cad, kaasi oo uu mariyay meeshii positive-ka ahayd isla markaana uu ku qoray negative. arrintaasi kadibna uu shaqadii toos u aaday, sidoo kalena uu ka qayb galay xaflada gaara. ninkaasi ayaa kadib la ogaaday arrinkiisa oo howlwadeennada caafimaadku ay soo heleen, maxaa yeelay marka qofka laga helo positive uu noqdo oo laga helo viruska corona, waxaa isla markiiba macluumaadka la gelinayaa bogga lagu kaydiyo macluumaadka bukaanka ee loo yaqaano Omakanta. sidoo kale xarumaha caafimaadka iyo hay'adda THL intaba waa loo gudbinayaa. ninkaasi oo arrinkaasi lagu helay ayaa haatan booliska loo gudbiyey, waxaana dhici karta haddii dembigaasi lagu helo in uu mutaysto ganaax ama 2 sano oo xariga. wararka ka imanaya dalka Kenyana waxa ay shaaca ka qaadayaan in xaaladda viruska corona ee dalkaasi haatan ay meel adag marayso, iyadoo madaxweynaha dalkaasina Uhuru Kenyatta uu amar ku bixiyay in jidxir lagu sameeyo ama lockdown la geliyo magaalada Nairobi iyo 4 magaalo oo kale. tallaabadaasi oo lagu doonayo in looga hortago faafista viruska corona. hadal uu ka jeediyay telefishinka dalkaasi Kenya ayuu ku sheegay in bad iyo dhul iyo cir intaba xuduudaha aan qofna ka bixi karin. waxaana uu sheegay in arrinkani uu dhaqan galayo laga bilaabo maanta oo Jimco ah. sidoo kale waxaa la xiray dhammaanba baararka, waxaa la diiday isu imaatinka xataa kuwa diimaha ah ee kaniisadaha iyo masaajidda. waxaa sidoo kale lagu soo rogay bandow xagga socodka oo habeenkii ah, kaasi oo bilaaban doona 8 fiidnimo kuna eeg 4 subaxnimo. waxaa iyagana dhammaan ardayda waxbarashada iskuulada, marka laga soo reebo kuwa imtixaanka kama dambaysta galaya, loo wareejiyay dhinaca internetka. waxaa madaxweynaha dalkaasi uu sheegay in baaritaanadii la sameeyay toddobaadkan ee ku saabsanaa viruska corona ee dalkaasi Kenya 22% ay positive noqdeen ama xanuunka laga helay, halka bishii January aynu soo dhaafnay baaritaanadii la qaaday oo dhan dadka xanuunka laga helay 2% ay ka ahayd, taasi oo muujinaysa in xanuunku uu si aad u faafayo. dhinaca guud ee caalamka marka aynu dhageystayaal eegno, waxaa tirada guud haatan ay maraysaa 126,205,938. tirada dhimashada ee caalamkana waxay maraysaa 2,769,615. qaaradda Yurub marka aynu si gaar ah u dul istaagno 42,247,797 ayaa tirada guud ee dadka xanuunka laga helay maraysa. dhimashada qaaradda Yurubna waxa ay maraysaa 934,598. dalka Mareykanka ayaa ugu horeeya, waxa uu ku dhowyahay Mareykanku 30 milyan. 24 saac la soo dhaafayna mar kale ayay dadka laga helayo tiradoodu kor u kacday 67,046 qof ayaa laga helay, 1,165 Mareykanka waa u dhinteen. Mareykanku haatan 560,000 oo qof ayay dhimashadu ku dhowdahay. Brazil ayaa xaaladeedu aad uga soo daraysa. Brazil haatan 12 milyan iyo bar ayay ku sii socotaa, iyadoo maalin walba laga helayo tiro 90,000 kor u dhaafaysa. 24 saac la soo dhaafay waxaa laga helay 97,586, waxaana u dhintay dalkaasi Brazil 2,639. tirada dhimashada ee guudna 300,000 ayay kor u dhaaftay. dalka Hindiya laftigiisa 12 milyan wax yar ayaa uga dhiman. 24 saac la soo dhaafanay 60,000 tiro ku dhow ayaa laga helay viruska corona, iyadoo 300 ku dhowaadna ay xanuunka u dhinteen. tirada guudna waxa ay maraysaa 160,983. dalalka xaaladooda aad ku liidato Faransiiska ayaa kamid ah. 4 milyan iyo bar ayuu ku sii socdaa Faransiisku. 24 saac la soo dhaafanay 45,641 qof ayaa xanuunka laga helay, 225 way u dhinteen. tirada guud ee dhimashada Faransiisku waxa ay maraysaa 93,378. Talyaaniga ayaa isna xaaladiisu aad u liidataa. 24 saac la soo dhaafay tiro ku dhow 24,000 oo qof ayaa xanuunka laga helay, 460 way u dhimatay. tirada guud 3 milyan iyo bar ayuu Talyaanigu haatan ku dhow yahay, dhimashaduna 106,000 ayay kor u dhaaftay. dalka Turkiga ayaa isna xaaladiisu maalmahan aad u liidatay.
28,731 qof ayaa 24 saac lasoo dhaafay Turkiga xanuunka laga helay, iyadoo tirada guudna haatan ay marayso 3,120,000 oo qof. Dhimashadu Turkiga waxay ahayd 157, 30,619 ayay tirada guud maraysaa. Jarmalka ayaad moodaa xaaladiisu mar labaad inay kor usoo kacday, iyadoo mowjadii saddexaad ay ka bilaabatay. waxaana 24 saac lasoo dhaafay Jarmalka laga helay 22,258 qof. Tirada guudna waxa ay ku dhowdahay 2,800,000. 205 ayaa Jarmalka 24 saac xanuunka u dhintay lasoo dhaafay, 76,116 waa tirada guud ee dhimashada. dalalka kale ee xaaladoodu ay aadka u liidato waxaa ka mid ah dalka Poland oo 34,153 qof laga helay xanuunka. tirada guud waxay maraysaa 2,155,000. 522 qof ayaa Poland ka dhimatay 24 saac lasoo dhaafay, iyadoo tirada guud ee dhimashadana 51,000 haatan ay ku dhowdahay. dalka Ukraine ayaa xaaladiisu mar kale ay kasoo dartay. 24 saac lasoo dhaafayna 17,000 tiro ku dhow ayaa xanuunka laga helay. 1 milyan iyo bar ayay kor u dhaaftay tirada guud ee dadka laga helay. dhimashaduna waa 31,135 tirada guud, iyadoo 24 saac lasoo dhaafay laga helay 362. dalalka xaaladooda ee aadka u liidatay oo haatan kasoo reynaya waxaa ka mid ah dalka Ingiriiska oo 24 saac lasoo dhaafay 6,220 qof oo keliya laga helay xanuunka, 63na ay u dhimatay. Ingiriiska tirada guud ee laga helay xanuunka waxa haatan ay marayaan 4,319,128. tirada guud ee dhimashadana 126,445. dalka Koonfur Afrika oo xaaladiisu ay aad u liidan jirtay maalmihii lasoo dhaafay ayaa haatan tirada dadka laga helay viruska corona ay hoos si aad ugu soo dhacday. 1,554 ee 24 saac lasoo dhaafay laga helay, 163na waa ay u dhinteen. tirada guud 1 milyan iyo bar ayay kor u dhaaftay Koonfur Afrika, dhimashadana 52,535. dalka Czech ayaa isna xaaladiisu ay kasoo reynaysaa, waxaana 24 saac lasoo dhaafay laga helay 8,841 qof, iyadoo tirada guudna 1 milyan iyo bar ay ku dhowdahay. 163 ayaa ka dhintay, 25,552 waxa ay maraysaa tirada guud. wadamada dariska haddii aanu dul marno aan ku horeyna Sweden, 24 saac lasoo dhaafay sida bogga Worldometers ee u kuurgala arrimaha corona uu sheegayo, wax diiwaan gelina Sweden ma aanay soo gudbin. tirada guud waxa ay maraysaa 758,335. 36 qof ayaa dhimashada 24 saac lasoo dhaafay la diiwaan geliyay, inkastoo laga yaabo inay tahay dhimashada dhowr maalmood oo la isu geeyay, taasoo tirada guud ee dhimashada Sweden ka dhigaysa 13,315 qof. dalka Denmark 24 saac lasoo dhaafay wax la diiwaan geliyay ma jirto sida bogga Worldometers uu shaaca ka qaaday, waxaana tirada guud ee Denmark ay maraysaa 227,849. 4 qof ayaa 24 saac lasoo dhaafay Denmark viruska corona u dhintay, taasoo tirada guud ee dhimashada ka dhigaysa 2,405. Norway 24 saac lasoo dhaafay 831 ayaa la diiwaan geliyay, waxaana tirada guud ay ka dhigaysaa 90,935. dhimasho lama diiwaan gelin, 656 ayay dhimashada guud maraysaa. dalka Icelandna 14 qof ayaa laga diiwaan geliyay 24 saac lasoo dhaafay. tirada guud Iceland waxay maraysaa 6,158. dhimasho lama sheegin dalka Iceland, waxaana tirada guud ee dhimashada ay maraysaa 29. dalka boqortooyada Sacuudiga oo hadda kadib aanu kusoo dari doono maadaama dadku ay quudareynayaan in ay xajka iyo cumrada aadaan, inkastoo weli dowladdu aanay wax wara kasoo saarin arrimahaas, ayaa 24 saac lasoo dhaafay 482 qof laga helay, taasoo tirada guud ee dalka Sacuudiga laga helay viruska corona ka dhigaysa 366,782. 6 qof ayaa u dhimatay 24 saac lasoo dhaafay. tirada guud ee dhimashadana waa 6,630. ugu dambeynna dalka Soomaaliya oo haatan xanuunku uu faraba'an ku hayo, iyadoo mowjad xoog leh ay ka socoto dhammaan gobolada dalka oo dhan, ayaa inta la diiwaan geliyay 24 saac lasoo dhaafay waxa ay wararku sheegayaan 133 qof, taasoo tirada guud ee dadka laga helay xanuunka ka dhigaysa 10,346. dhimashadana waa 8 qof 24 saac lasoo dhaafay, taasoo tirada guud ka dhigaysa 471. dhegeystayaasha qiimiga ee qaayaha mudan ee hawada naga dhegeysanayo, wararkii ku saabsanaa viruska corona ee Finland iyo caalamka intiisa kale oo aad kala socoteen codka Soomaalida Finland SSM, intaa ayaan kusoo koobaynaa. inta aanan ka bixin barnaamijka dhegeystayaal, waxaan isu dardaarmaynaa in loo hoggaansamo awaamirta iyo talooyinka dowladdu ay bixinayso.
xaaladdu meel adag ayay maraysaa. xanuunka viruska corona haatan waa uu sii laba kaclaynaya isagoo mar walba u xibsiibanaya nooc cusub oo hor leh oo noocyadii hore ka faafis badan. sidaa darteed waa xaalad u baahan taxadar iyo dulqaad iyo adkaysi intaba iyo hoggaansan arrimaha la isfarayo oo ay ugu horeyso nadaafadda oo ay ku xigto qofku in haddii wax yar oo xanuuna uu dareemo dadka arrinkaas kama dhaadhacsana. xataa haddii aad isku aragto hal astaan oo ka mid a astaamaha xanuunka sida hargab, qufac, madax xanuun, dhuun xanuun, walow wax kale aysan ku hayn, waa khasab qofku inuu baaritaanka hore ka aado. baaritaankaas haddii aad 10 goor ku laabanaysid xitaa adiga shaqada maaha oo ku lacag la-aan, waxaa laga cararayaa in xanuunka uusan dadka ku dhex faafin. inta badan xanuunku wuxuu ku faafaa iyadoo qofku uusan is ogeyn ayuu faafinaya ama astaamihi aan lahayn. sidaa darteed haddaad isku aragto astaamaha qaarkood ama hal ahaada ama ha yaraadaani, baaritaanka tag. inta baaritaanka uu ku maqan yahay gurigaaga ku jir. karantiil iyo go'doomin haddii lagu sameeyana gurigaaga ku jir. adoo shaqo u cararaya ama lacag raadis ah, naftaadana ha halaagin, tan dadka kalena ha halaagin. weliba hadda sida aad warka ku maqlayseen aad baa la isugu daba jiraa iyadoo dadka karantiilka la geliyey markiiba macluumaadkooda meel walba la gelinayo, isla markaana hadhow hadduu qof jabiyo sharciga lala tigsanayo. intaasoo dhanna waxaa ka weyn diinteena islaamka oo iyadu aan ogolaynba khayaanada iyo isdabamarka. haddii inta adoo karantiil ama go'doomis ku jira aad baxdo oo dartaa qof u dhinta xanuunka u qaadana, inaad naftaa dishay ayaa dambiilo ku tahay. waa inuu qofku ogaado. sidaa darteed ha loo hoggaansamo awaamirta iyo talooyinka ayna siinayaan howladanada caafimaadka. gaar ahaan waxaa aada looga digayaa isu imaatinka iyo xafladaha iyo kulamada guryaha dhexdooda ah. waxay dowladdu ku talinaysaa qoys walba in kulankiisa iyo arrimihiisa asaga uu ku ekaado inta xaaladan dhibka badan laga baxayo. maxaa yeele waxyaabaha xanuunku aada ugu faafa waxaa ka mid ah qoysaska dhexdooda iyo isu imaatinadaas. dhegeystayaasha qiimiga qaayaha mudane hawada naga dhegeysanayow, naftaada daryeel, tan dadkaaga iyo tan ehelkaaga. ilaahay aan tala saaranno, aanan ku dadaalno asbaab kasta oo xanuunkan aan uga hortagi karno. ilaahay waxaan ka baryaynaa inta xanuunsan inuu xanuunka ka qaado, inta isbitaalada ku jirta dhibaataysan dhibka uu ka qaado, dembi dhaaf ugu bedelo, inta dhibata ilaahay uu naxariisto, inta uusan ku dhicinna ilaahay uu ka ilaaliyo. waa bahda SSM oo idinla sidaas iyo nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.